waxaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle soo gaaray wafdi uu hogaaminayo siihayaha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay wasiirka gargaarka Hirshabelle ujeedada imaatinka wasiirka ayaa ah in qalab xafiiseed uu ku wareejiyo wasaaradda gargaarka Hirshabelle qalabkaas oo looga howlgeli doono xarunta ka digista halis wadareedka oo ah xarun lagala socon doono dhammaan musiibooyinka wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdimahad Qoorgaab ayaa u mahadceliyay dhigiisa wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya oo maanta agabkan ku wareejiyay wasiirka gargaarka maareynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya mudane wasiir Xamza Saciid Xamza waliba asaga iyo wafdi balaaran la socday wasiirka oo waliba ujeedka iyo hadafkiisu uu ahaa in ayna soo gaarsiiyaan qalab loogu talagalay ka digista maxaa la yiraahdaa early warning-ka ama halis wadareedka la yiraahdo asagoo noo wado waxaan leeyahay mudane wasiir waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay wasaaradana sida ay wasaaradaha humanitarianka ee maamul goboleedyada ay u garab taagan tahana waan kaaga mahad celinaynaa dhinaca kale siihayaha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in qalabkan uu wax badan u tari doono xaruntan ka digista halis wadareedka ee laga hirgeliyay magaalada Jowhar. Bismillahir Rahmanir Rahiim waxa farxad weyn ah maanta inaan soo gaaro caasimadda Hirshabelle magaalada Jowhar waxaan u mahad celinayaa wasiirka gargaarka maareynta musiibooyinka iyo tiimkiisa noo soo dhaweeyeen runta hadafka safarkan waa mashruuc aan wadnay xaruntii laga hirgeliyay magaalada Muqdisho ee ka digista halis wadareedka inaan gaarsiino gobolada dhan waxaan hore u gaarsiinay gobolka state-ka Puntland Koonfur Galbeed Jubbaland iyo Galmudug oo hadda aan ka socono maantana waxaan joognaa caasimadda Hirshabelle waxaan filayaa qalabka in wax weyn u tari doono magaalada Jowhar meelaha ugu nugulsan markay fatahaadaha ka dhacaan inuu ayagana shaqaalahoodan waxaan rajeynayaa sida ugu dhaqsi badan inaan xamar aan keeno oo tababar fiican loo furo si ay ugu faa'iideystaan technology-gan cusub wabiga Shabeelle ayaa waxa uu fatahaad ka geystay deegaano hoos yimaada degmada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle qalabkan lagu wareejiyay wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka Hirshabelle ayaana ah qalab lagu ogaan doono fatahaadaha dabaylaha inta aysan dhicin Mahad Axmed Calasow warbaahinta Goobjoog magaalada Jowhar.